xafladii lagu taageerayay madaxweynaha saddexda gobol mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo caawa ka dhacaysa magaalada London Continental Restaurant markaan waxaan u yeeraynaa anagoo u gudbayna qaybtii khudbadaha Engineer Hashim kana mid ah qabanqaabada xafladan lagu taageerayo waxaan leeyahay ku soo dhawow hadaad maqlayso mikrofoonka waxaan inga mahad celinayaa sida sharafta leh aad uga soo qaybgashan xafladan lagu taageerayo madaxweynaha ismaamulka Koonfur Galbeed madaxweynaha Shariif Xasan Sheekh Aadan waana inga mahad celinayaa sida sharafta leh shirkan waa noo furan yahay marka waxaan ku soo dhaweynayaa beerlulo oo ah hooyada qaranka Mothers UK bismillaahir rahmaanir rahiim Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha midowdo Soomaaliya cadowgeeda ha dhaco waa mahadsantiin mudanayaal iyo marwooyin anigoo ku hadlayo magacayga iyo magaca ururka haweenka qaranka Soomaaliyeed Somali Mothers International Association mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinka mahad celinayaa sida xushmada leh Soomaalinimada leh damiirka leh oo casuumaad aan casuumi aad igu timaadeen kun iyo kow jeer waan iga mahadinayaa waana mahadsantiin marka xigta waxaan rabaa inaan hal buraanbur aad mutaysateen horta aan idin qaado magaca Soomaaliyeed oonan kala maqnayn magaca Soomaaliyeed oonan kala maqnayn ee mudana iyo marwooyin waahani mashxaradaya martida noo timidna mahad baan u celinayaa xafladan caawa oo qiimaha badan oo maskaxdayga mugga iyo maalka la geliyay waxa lagu taageerayaa saddexda gobol ee Koonfur Galbeed madaxweynaha Koonfur Galbeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaan nahay mas'uuliin oo mas'uuliyadda soo saaray isla markaasna habeenka caawa ah ayuu dadweynaha Soomaaliyeed hadaatiin ayuu nii mahad celin doonaa taageerista aad taageerteen waana loo baahan yahay haddaan Soomaali nahay labadii gobol oo meel isugu tagto oo hadima adduun ka badbaadi karto inaan taageerno xaqaan u leenahay waana mahadsantiin sababtoo ah dalka Soomaaliya waxa ku dhacay burbur waxa ku dhacay colaad xuna ku dhacday isla markaas meel alla meeshii maamul Soomaaliyeed ee hoos tagayo dawladda dhexe ee Soomaaliya waa taageeraynaa annaga Soomaali haddaan nahay hadday tahay Galmudug hadday tahay Puntland hadday tahay Jubbaland hadday tahay Somaliland hadday tahay inta laano Soomaaliya ka jirto Soomaaliya kaasana deeqa kaasan ka simanna midda kale waxaan rabaa habeenka caawa ah waan u mahad celinayaa gabdhaha sharafta leh ee marwooyinka ah mar walbana aniga waxaan taageeraa oon codkaygana siiyaa gabadha Soomaaliyeed because problem haduu dhaco gabadha ooynayso waa gabar Soomaaliyeed gabadha ninkeeda hadii la dalay asayga qaadayso waa gabar Soomaaliyeed tan wiilkeeda dhimanaya waa gabar Soomaaliyeed sida adligeed waxa aniga taageero aan u ahay gabdhaha Soomaaliyeed magacoodana aan ku hadlayaa habeenka caawa halkaan waxaan rabaa miidiyaha salaan inaan uga gudbiyo ayaan jeclahay xildhibaan oo hadda xildhibaanada dalka Soomaaliya ku jiro oo ahaa ku xigeenkii baarlamaanka dawladii Sheekh Shariif ayaa halkaan caawa waxaan rabaa inaan hambaliyo aan uga jeediyo waa xildhibaan Cabdiwali Ibrahim Sheekh Mudey waxaan leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka mudane Sheekh Maxamuud waxaan leeyahay hambaliyo dalka iyo dalka uu u shaqeeyay golaha baarlamaanka waa u mahad celinayaa maamul goboleedyada oo danta qaaska u kacay oo dalkooda iyo dadkooda iyo maatadooda inay badbaadiyaan raba si ilaahay dartiisa aan ku taageerno xumaantana Soomaaliya aan ka fogaano waan nii mahad celinayaa waa mahadsantiin noolaada Soomaaliya ha midowdo wiilashana Soomaaliyeed ha noolaadaano waana mahadsantiin ahlan wa sahlan aad bay u mahadsan tahay waxay ahayd qabanqaabada gudoomiyaha qabanqaabada qaali beerlula waxaanu leenahay aad bay u mahadsan tahay sida ay noogu soo koobtay bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh mudanayaal iyo marwooyin waxa caawa sharaf iyo karaamo noo ah
xafladda tan qiimaha badan oo aan ku taageerayno maamul madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo runtii ah nin haliyey ah oo ku guuleystay bacdal dadaal dheer kadib inuu noqdo madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliya ayaan xafladda tan caawa aan ugu mahadnaqaynaa waxaan rabaa marka inaan ugu mahadnaqo guddiga abaabulka oo ay gudoomiye ay u ahayd Qaali Beerlula oo uu ka mid ahaa injineer Hashim sida quruxda badan oo ay u soo agaasameen ayagoo runtii ku duulay magaca jaaliyadda iyo koodaba gaarka ah iyo guddiga farsamada ayagoo mas'uul ka ahaa waxay ku guuleystaan xafladda tan inay soo agaasimaan si qurux badan u soo agaasimaan waxa caawa sidoo kale halkaan mudan in lagu xuso ex prime minister Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde oo runtii muujiyey sida maaragtay mas'uuliyadda iyo xilkasnimada ay ku jirto oo munaasabadda tan ku soo maaragtay maamuusay guddigii qabanqaabada xafladda tan casuumaadii ay u direen sidoo kale waxaa fadhiya halkaa marti sharaf kala duwan oo rag iyo haweenba isugu jira aqoon-yahano siyaasiyiin culimaadudiin intaba isugu jira sidaa darteed waxaan leeyahay waxaa halkan fadhiya sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadda anigoo runtii ah guddoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee UK waxaan hambalyo iyo bogaadin leeyahay anigoo ku hadlaya magaca jaaliyadda oo dhan guushaas uu guuleystay madaxweynaha maamul goboleedka saddexda gobol sidoo kale waxaan rabaa inaan ugu mahadnaqo dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminayo mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo prime ministerka iyo gudoomiyaha baarlamaanka dhammaan maamulka federaalka oo dhan gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha oo guudatay kaalinteedii sidoo kalena wasaaradda dastuurka oo iyadana kaabtay mataqaanaa qaybta ay ku lahayd maamul sameynta goboladaasi dhammaan waxaan leeyahay dowladda federaalka waad mahadsantihiin waad ku guuleysateen maamul sameynta goboladaasi Shariif Xasan Sheekh Aadan waxaan leenahay hambalyo guuleyso bismillaahir rahmaanir rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan waad salaamantii dadka ka qayb gasheen caawa xafladan sharafta oo loo dhigay Shariif Xasan Sheekh Aadan aad ayaad ku mahadsantii marka hore aabihii nabadda nala joogo Nuur Cadde asana aad u mahadinay iyo dadka qabanqaabiyeen macna xafladan caawa oo sharafta leh gaar ahaan macna Beerlula iyo gudoomiyaha jaaliyadda nala joogo Salaamullah iyo odayaashii sharafta leh oo halkaan isku yimid dhamaantina aad ku mahadsantiin caawa si sharafta aad yani aad waxa support gareynayna halkaan u nimid halkaan saddexda gobol inaan support gareyno run ahaantii insha Allah anigu hadalkayga sii dheereen runtii aad ayaan ku faraxsanahay caawa inaan halkaas aan ka qayb galno haddana waxaan u yeerayaa Sabriye Calana oo ah kasarka degmada Banel ugu taageerayo koonfur galbeed Soomaaliya gobolada la isku yiraahdo oo madaxweynaha uu yahay Shariif Xasan Sheekh Aadan waa iga raali aada ayaan meeshaan isugu nimid waanan taageersanahay Shariif mar haddii maaragtay goboladaas koonfur galbeed Soomaaliya ay doorteen Shariif Xasan macnaha waa asiibeen oo ninka kaliya oo marka ka samata bixi karo goboladaas waa ninkaas odagaas haddii aan u soo laabto waxaan ku mahadcelinayaa qabanqaabayaasha xafladan iyo kasoo gabayaasha oo uu yahay ra'iisul wasaarihii hore Nuur Cadde iyo gudoomiyaha jaaliyadda UK iyo injineer Hashim oo asigana iyo gabadha la yiraahdo Beerlula oo ah runtii qabanqaabiye aad wanaagsan waxaan kaloo mahad ku jeedinayaa gabdhaha Soomaaliyeed ee sharafta badan ee kasoo qayb galay meesha iyo odayaasha kale iyo aqoon-yahaniinta iyo culamaadiinka iyo militariga iyo ardada iyo dhammaan inta meesha isugu timid oo mahadcelinaya marka labaad waxaa sharaf aniga marka in aan kasoo qayb galo xafladan lagu taageerayo gobolada koonfur galbeed iyo madaxweynaheeda Shariif Xasan Sheekh Aadan markaana waxaan u yeerayaa Maxamuud Quran
waxaan u mahadcelinayaa dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladan sharafta badan ee aan ku taageerayno madaxweynaha saddexda gobol shariif xasan sheekh aadan runtii waxaan dhihi karaa shariifka waa nin maaragtay aqoon aan u leenahay waa nin codkara waa nin maaragtay dhismaha waddan ka soo qayb qaatay marka waxaan leenahay waad asiibteen bagaad u asiibteen marka xigta waxaan u mahadcelinayaa qabanqaabayaasha sharafta leh runtii ku dadaalay inay muujiyaan maaragtay taageerada aan u hayno madaxweynaha saddexda gobol shariif xasan sheekh aadan waxaan leenahay allah kula garab galo waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhammaan dowladda maaragtay soomaaliya waxaan leenahay weldon si fiican baad samayseen waxaan leenahay waa dadaasheen meel fiican bayna maraysaa khaasaan waxaan leenahay wasaaradda arrimaha gudaha garsoorka runtii waxaan leenahay shaqo fiican baad qabateen meeshaana ku sii wada waa tahay aada buu mahadsan yahay siduu waqtiga noola ilaaliyey markaana waxaan ku yeerayaa khaliif suldaan khaliif muumin بسم الله الرحمن الرحيم marka hore ilaahay suqaayo keenaa mahadale marka labaad waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo guddiga qabanqaabada oo ay madax u ahayd qaali beerlula iyo injineer helgim xaqiiqatan waxaan rabaa oo kale inaan u mahad celiyo kasoo qaybgalayaasha dhammaan rag iyo dumarba bahda saxaafadda siyaasiyiinta ugu horeeyo ra-iisul wasaarihii hore nuur xasan xuseen gudoomiyaha jaaliyadda cabdullaahi maxamed aadan mbiga dhammaantiin waxaan leeyahay aad baad u mahadsantihiin waxaa sharafii ah inaan caawa ka soo qayb galo xafladda tan lagu taageerayo saddexda gobol oo loo yaqaano koonfur galbeed of soomaaliya oo madaxweyne ka yahay shariif xasan sheekh aadan waxaan leeyahay ambalyo xaqiiqatan soomaali koonfurta soomaaliya ama saddexda gobol oo loo yaqaano koonfur galbeed of soomaaliya soomaaliya federaal bay u dhaqaaqday sideeday federaal ku tahay waa gobollada la hubo in dadka soomaaliyeed ay u dhan yihiin dhammaan ay ku dhammaystiran yihiin oo federaal dhaba oo meeshaas inuu ka jiro waxaan soo dhawaynaynaa madaxweynaha koonfur galbeed of soomaaliya shariif xasan sheekh aadan oo aan leenahay waa la siibteen nin u qalma inuu noqdo madaxweyne oo ummaddaas hogaamiyo ayaan u aragnaa sidaa awgeed waanu soo dhawaynaynaa maamulkaasna waa soo dhawaynaynaa waxaan u mahad celinaynaa dowladda soomaaliya oo madaxweynaha ka yahay xasan in ay runtii gudatay waajibaadkeedii qarannimo wasaaradda arrimaha gudaha hadday tahay iyo hadday madaxweynaha tahay iyo hadday baarlamaanka tahay iyo hadday ra-iisul wasaare tahaba waxaan leenahay gobol maamulkaas sida aad u taageerteen oo aad u dhammaystirteen gobollada kalena in loo dhiso ayaanu soo dhawaynaynaa taasna waxaan leenahay hambalyo waxaan si weyn u soo dhawaynaynaa madaxweynaha shariif xasan sheekh aadan oo caawa halkaan xafladdu ay ku saabsan tahay in asaga loogu hambaliyeeyo iyo maamulka uu hogaaminayo aad baad u mahadsantihiin aad buu u mahadsan yahay suldaan khaliif waxaan u yeerayaa markaana yaasiin bulsho السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سعادة اكس برايم مينستر أهاينا سفيركا تريانيكا يوروبيان يونينكا waxaan caawa sharaf noo ah meeshaan inaan iskugu nimaado inaan taageerno Soomaalidan maartay koonfur galbeed la baxday waajibaadkana saarna ay tahay annaga qofkii wax qabsanayo in la taageero oo lagu taageero waxa uu qabanayo marka waxaan leenahay shariif xasan caawa adiga ayaa halkan ummadan ku soo banaan baxday waxaan u soo banaan baxday in adiga magaca maanta lagu magacaabo ay ku taageerto waxaan dadka abaabulan aan ugu mahad celinayaa sida sharafta leh maartay waxa special jaaliyadda UK waajibaadka ka gudata halkan barnaamijkan xoogiisa iyaga qayb ku lahayd waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa shariif waa lagu magacaabay waxaan rajaynayaa guri hadduu saqafkiisa uu dhisan yahay tiir uusan lahayn saqafku waa soo dumaya marka adiga saqafkii waa lagaa dhigay tiirarkaaga dhiso oo xildhibaan talo waay inaad macnaha xildhibaanadina abuurato oo saddexda
gobol isku tegaysa aad samaysato si aad awood ugu yeelato ina maamulkaas uu jiro maxaa yeelay degaan kastana waa in xildhibaanadiisa gooni uga yimaadaan si aan macnaha u naqan dad aan isku marin degaan kastana uu awood u yeesho maamulkiisa inuu qayb uga qaato waxaan leeyahay waa mahadsantihiin intii abaabushay oo hoggaanka ugu ahayo injineer haashim oo ragga hoggaaminayay iyo gabdhaho qaali hoggaaminaysa iyagana waxaan leeyahay waa mahadsantihiin sida aad macnaha caawa barnaamijkan u taabusayn waxaan rajaynayaa sida loo yimid in loogu taageero dhaqaalo loo baahan dhaqaalahana qayb loogu darsado wasalaamu calaykum waraxmatullahi waxaan u yeeraynaa cariif ayaan u yeeraynaa ay ku soo dhawaa cariif microphone بسم الله الرحمن الرحيم أبشرت الله إنه وافجيو مركه هره وحن هذا علينا جودك قامن قابضة أبابولي هوشان اسكت بردي هنان كان قروح بدننا وسوها جاجينا أبانكم هذا علينا وحكلام هذا علين مضان رجع يدمر با dadka meesha fog ka yimid ee maalintoodii cibaado u soo degdegay inay ka soo qayb galaan martiqaadkan quruxda badan ee lagu taageerayo madaxweynaha saddexda gobol ee koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan shariif xasan sheekh aadan soo dhoweyntiisu hadda naguma aha waa nagu badnayd hadda ka hor waa ku soo dhoweyna meeshaan asigoon madaxweynena ahayn anan ahayn xildhibaan anan ahayn ilaah hadduu kuu roon yahay wax kale aan ahayn laakiin siyaasi rugcadda ah ayaan ku soo dhoweynay si qurux badan waxa nasiib noo ah marka asigoo madaxweyne saddex gobol ah in maanta hoteelkan aan martiqaad fiican soo dhoweyntiisa uga soo wada qayb galno haddii aanu nahay dadka ku nool magaalada London haatanna waxaan ku soo dhaweynayaa ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliyeed mudane Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde waa ku mahadsan yihiin guddiga yani muxuu isku ku dadaalay oo isxil qaamay inay xaflad wanaagsanaato oo xaflad qiimo leh ay ahaato marka mahad baa u celinaynaa iyagana caawa intaanan tv-ga qaranka oo mar kasta xafladaha noocaana yani muxuu ahay mar kasta dadaal la hortaagana waana soo dhoweynaynaa waana u mahad celinaynaa xafladdan caawa mudanayaal iyo marwooyin waxaa loogu talagalay in lagu soo dhoweeyo ama loogu dabaaldego dhismaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo doorashadii loo doortay madaxweynihii dowlad goboleedkaas mudane shariif xasan sheekh aadan waa runtii wax qiimo weyn la waaye waana runtii dadaal badanna waa la soo galay waxaan rabaa inaan idin xusuusiyo shariif xasan sheekh aadan oo madaxweynaha saddexdaa gobol ee hadda baay bokool iyo shabeellaha hoose saddexda goboloo ka kooban oo loo yaqaan koonfur galbeed madaxweyne looga dhigay waxaan ka rabnaa oon weydiisanaynaa caawa wax codsii ma u gudbinaynaa mar haddaan xafladdii loogu dabaaldegayey aan ka soo qayb galnay oo aan u dabaaldegayno dhismaha dowlad goboleedka oo madaxda u yahay iyo doorashada madaxweynenimada loo doortay dowlad goboleedkaasba dabcan codsigaynana inaan u gudbinoon u sheegno waa loo baahanya ila taha marka maxaan rabnaa oo aan ka codsanaynaa marka u horeysa haddii aan wax yar ka taabanno
dowlad goboleedkan laga dhisay koonfur galbeed dadka deegaanka ahoo degan waa dad xadaarad dheer leh xadaarad yacni taariikh badan leh gobonnimadii ka soo qaatay yacni qiimo aad u fara badanna ku bixiyey marka maxaan yacni annaga jecelnaa waxa aan raadinaynoon jecelnaa maxay yihiin oo noogu qiimo badan oon ka codsannaa dowlad goboleedkaas dadka degaanka iyo madaxweyne shariif xasan sheekh aadan aniga waxay ila tahay inaan ka codsanno waxa uu yacni shariif xasan xogayraan rabaa inaan ka taabto shariif xasan sideedaba yacni muxuu yahay shariif xasan waa nin nabadeed taariikhiyan waana nin kaalin fiican ka soo qaatay barnaamijkii dib u heshiisiinta ee dowladda ku-meel gaarka ahayd iyo mucaaridkii markaas ahay laakiin muxuu ahay maxaakiimtii waana og tihiin in dowlad ku-meel gaara ay halkaas ka dhisantay nabaddii markaas la aasaasayna ay weli socoto meel wanaagsanna marayso waxyaalaha yaryarka ahoo hadda aad yacni jirjirana waa iska dhammaanayaan waana toosaysaa laakiin annaga waxaan ka rabnahay ila tahay haddaan magaciina ku weydiiyo ama magaciinaba aan ku xuso midnimada soomaaliyeed iyo nabadeynta soomaaliya in dowlad goboleedka soomaali galbeed ay ka shaqayso ma isku raacsannahay taas codsigaas waayo annaga waxaa qiimo noo leh soomaaliyoo mida waxaa qiimo noo leh soomaaliyoo nabada waxaa qiimo noo leh dalkeenna oo barwaaqo ah intabana waa sahlan yihiin haddii lagu dadaalo oo si daacada muxuu ahay laysugu dayo in laga shaqeeyo arrimahaas marka waxaan aad iyo aad u rajaynaynaa shariif xasan sheekh aadan isagoo kaashanaya waayo aragnimadii oo hore u lahay inuu ku dadaalo bal marka hore in dib u heshiisiin barnaamij ah oo ummadda soomaaliyeed yacni qalbigooda loo midaynayo oo gacmaha la ysu saarayo in ay ka dhaqan geliyaan dowlad goboleedka koonfur galbeed dhexdiisa kadibna loo gudbo ka bannaanka dowlad goboleedkaas macnaha dowlad goboleedyada kale loo gudbo halkaasna ay ka dhaqan gasho nabadeyntii soomaaliya dowladda federaalka soomaaliya waxaan ka codsanaynaa sidoo kale intood inay gacan ku siiso dowlad goboleedka koonfur galbeed oo curdunta hadda dhalatay sidii ay ku barbaari lahayd kuna hana laheeday ujeeddooyinka ku gaari lahayd ujeeddooyinka ee loo aasaasay isla markaasna nabad amni iyo muxuu ahay barwaaqo ay waddanka inta ay dowlad goboleedkaas ku yaallo ay uga dhaqan gelin lahayd annaga runtii haddii aan caawa ku hadlayno magacii jaaliyadda u k oo aan taageeradan taageerayno koonfur galbeed oo hadda dhalatay la aas-aasay madaxweynena loo doortay madaxweynena uu noqdo shariif xasan sheekh aadan aanna ku faraxsannahay oo aan u dabaaldegayno
waxay ila tahay mahaddaas aan u jeedinayno isaga iyo madaxweynaha iyo shacabka Soomaali galbeedba waxaan dhihi lahay Soomaali koonfur galbeed in aan dowladda Soomaaliyeed na yacni ku mahad celino dowladda Soomaalidu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh oo aan ognahay inay aad isugu howleen dowladda Soomaaliyeed oo xasan sheekh hogaaminaya aad waxay isugu howshay sidii ay yacni dowlad goboleedyo looga dhisi lahay dalka gudihiisa iyadoo la dhaqan gelinayo barnaamijka federalism barnaamijka annaga nagu cusub laakiin aan rajaynayno inuu noo noqdo barnaamij ummadda Soomaaliyeed ka saara dhibaatooyinka jira oo ka dhex dhaliya Soomaaliya wanaag iyo isjacayl waxaad og tihiin haddii hadda aan soo qaadanno koonfur galbeed oo hadda dhalatay waxay ka kooban tahay 3 gobol 3daa gobol dadka deegaanka markay isdhex galaan oo is arkaan oo shiraan oo doodaan halkaas waxaa yacni soo kordhaya wanaag badan iyo isjacayl ayaa soo kordhaya marka xaqiiqdii waxaan dhihi lahay aniga systemkan federalismada dhinaca yacni uu faa'iidada ku leeyahay uu faa'iido ku keeni karo horta runtii waxa waaye haddii la isku dayo in si fiican loo dhaqan geliyo Soomaalinimadii iyo midnimadii Soomaaliyeed kaalin weyn uu ka qaadanaya fikrada yar waxaa jira leeyahay hadda ama nala kala qaybinaya haddaan Soomaalidii nahay federalismaha la dhisaayo maya kala qaybin maaha haddii yacni sidii oo loogu talagalay la sameeyo federalismo waa barnaamij weyn waa system fiican oo runtii dhibaatada Soomaaliya haysata ka saari karo waay marka hala dadaala ayaan qabnaa kulli waxaa jira goboladan hadda Soomaali galbeed deegaanka dadka degan ayaga weliba waa xadaarad dheeray leeyihiin waa aniga idin lahaa tan iyo markii la qaatay gobonnimada Soomaaliya ilaa maantay waxay ku dadaalayeen ay ku doodayeen federalismo in la qaato masoo beentay federalistan iyo markii xornimada la qaatay yacni goboladan hadda Soomaali koonfur galbeed waxay ku qaylinayeen federalism gaar ahaan weliba Baay Boqol labada gobol ah maanta mar haddii federalism la qaatayna hadda waxaan ka sugaynaa inay u dhaqan geliyaan sidii loogu talagalay si habboon waddankana looga faa'iideeyo ayaan rajaynaynaa marka hadalkii aanu ku dheeraan aniga runtii halkaasaan ku soo gaabinayaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin aad buu u mahadsan yahay ra'iisul wasaarihii hore Nuur Cadde markaana waxaan u yeerayaa Beerlula oo ah gudoomiyaha qabanqaabada ahna gudoomiyaha guddiga fulinta hadda waxaan rabaa fursadan inaan uga faa'iideysto inaan shahaadooyin loo wado dalka Soomaaliya oo madaxda qarankiisa u kaleeyna rabaa inaan gudoonsiyo gudoomiyaha qabanqaabada ila waday injineer Haashim shahaadadan waxa iskala u jeedaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud shahaadadan waxa iskale madaxweynaha dowlad goboleedka saddexda gobol ee koonfur galbeed mudane shariif xasan sheekh aadan shahaadadiisu waa taas shahaadadan kale waxa iskale xildhibaan aan aad iyo aad aan u jecelnahay haddana gabdhaha qaranka Soomaaliyeed oo haddana ah xildhibaan dowladda federaalka ah mudane cabdi wali ibraahim sheekh muday ugu dambeyn
shahaadadan caalamiga waxaa iska leh cali maxamed xasan injineer haashin oo hortiina taagan waxaa shahaadadan iska leh wasiir Soomaaliyeed wasiirka dastuurka ayaa iska leh iyo federaalka master Faarax Cabduqaadir ayaa iska leh shahaadadaas shahaadooyinkaas dhaxalgalka ah oo qiimaha badan aad u jeedaan waxa bixiyay haweenka qaranka Soomaaliyeed ee Somali Mothers International Association madaxda waxaan leenahay waad mahadsantihiin hore u shaqeeya programkiina hore u gala waxa caawa aan ku faraxsanahay xafladan qiimaha badan oo qaayaha badan ee loo sameeyay madaxweynaha koonfur galbeed ee Soomaaliyeed mudane Shariif Xasan Sheekh Aadan oo ah nin geesi ah oo dalkiisa iyo dadkiisa u soo shaqeeyay jagooyin badanna ka soo qabtay dalka Soomaaliya mudane Shariif waa nin ummadiisa sama bixi kara oo dhibaatada ay ku jiraan ka saari kara waa nin dadweynaha Soomaaliyeed garab istaagi kara waa nin codkiisa ku matali kara shacabka oo madaxweynaha u yahay